wafdi ballaaran oo ay hogaaminayaan siyaasiyiinta suldaanada cuqaasha dhalinyarada beesha Cabdalla Bakor ayaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland 6dii subaxnimo maalinnimadii Arbacadii ugu qalab qaatay siday u soo baraarujin lahaayeen uguna dardargelin lahaayeen dadka beesha Cabdalla Bakor ee ku nool degmada Alley Baday isdiiwaangelinta doorashooyinka oo 28 bisha Disembar guud ahaan ka qabsoomi doona dalka Soomaaliland. ugu horreynba wafdigu markii uu ka ambabaxay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxa uu sii jeestay deegaanada kala duwan ee hoos yimaada degmada Alley Baday waxaana ugu horreynba soo dhaweyn diiran sacab iyo mashxarad uu kala kulmay tuulada Geed Abeera. dadka deegaanka ayaa si qalbi furan u soo dhaweeyay wafdigani ballaaran ee ujeedkiisu yahay dardargelinta dadka ku nool deegaanada Alley Baday hoos yimaada si ay ugu diyaar garoobaan isdiiwaangelinta doorashooyinka. wafdiga ayaa warbixin kooban ka siiyay habka iyo hanaanka loo qaban doono diiwaangelinta Soomaaliland ka qabsoomi doonta 28 Disembar. wafdigani oo hankiisu yahay sidii uu dadka u dardargelin lahaa ayaa haddana isagoo socodkiisa sii wata waxa uu soo dhaweyn diiran kala kulmay tuulada xidhinta. dadka ku dhaqan tuulada xidhinta ayaan iyaguna u kala hadhin sidii dadka ku nool tuulada Geed Abeera soo dhaweynta wafdigani ee hankiisu yahay sidii uu dadka ugu dardargelin lahaa diiwaangelinta 28 Disembar ka qabsoomi doonta guud ahaan geeyiga Soomaaliland. sidii deegaankii hore ee Geed Abeera aynu soo dhaafnay wafdigu waxa uu dadka ku dhaqan tuulada xidhinta uu warbixin ka siiyay habka iyo hanaanka loo qaban doono diiwaangelinta doorashooyinka ee la filayo inay Soomaaliland ka qabsoomaan 28 Disembar. markii uu wafdigu ka ambabaxay tuulada xidhinta ee hoos timaada degmada Alley Baday ayaa wafdigu waxa uu isku qaybiyay laba qaybood. qaybta koobaad oo iyadu ku baxasay tuulooyinka kala ah Harcadaad, Kaambarwaaqo, Tincadda, tuulada ugu dambaysa oo ah Diini Goobaale. ka qaybta kalena ay ku baxasay tuulada Taysa iyo tuulada Laaya oo iyaguna ka tirsan degmada Alley Baday ee gobolka Gabiley. labada qaybood ee wafdiga ayaa isugu imaaday degmada Alley Baday ee ka tirsan gobolka Gabiley halkaas oo ay soo dhaweyn kala kulmeen dadka ku dhaqan degmada Alley Baday. isla tuulooyinkii aynu soo dhaafno oo kale ayay dadka ku dhaqan degmada Alley Baday wafdigu uga warbixiyay habka iyo hanaanka loo qaban doono doorashooyinka ee 28 Disembar la filayo inay ka qabsoomaan guud ahaan geeyiga Soomaaliland. sidoo kale wafdigani ayaa u tallaabay dhanka dalka Itoobiya si uu dadka reer Soomaaliland ee ku nool dalkaasi Itoobiya ugu soo baraarujiyo isdiiwaangelinta oo ka qabsoomi doonta 28 bisha Disembar Soomaaliland. marka waxaan doonaynaa in isdiiwaangelino oo nu qaadana ka ama qof idinka oo bari baahan bay wax ugu tari ama qof diidantiin baa codkiinu ka joogsan laakiin deegaanka aad ka soo jeedaan codka uu helaa waa waxa uu wax ku qaybsanayo oo wax kaga helayo dadka ay wax wada leeyihiin. adduunkana inta la joogo dee tartan baa lagu jiraa aakhirana waa loo tartamayaa oo ninkii aan ilaahay wuxuu faray la imanin dee meel buu leeyahay. adduunyadana waa lagu tartamayaa oo qofku wixii uu samaysto ee uu qofkan kale dee kula tartamo uu muddo wax ku noqdaa. waxaan doonaynaa inaynu arrinkaa si weyn u gallo dadku inay noo diiwaan gashanaadaan ay soo qaataan kaadharka waqtiga markaa talooyinka aynu inagu odhanayno isku toosinayno marka waxaynu haysanno aynu wax iska celinaa meesha uu yaalla baynu odhanaynaa laakiin inagoon waxba haysanin dee waxaynu isu sheegnaa wuxuu noqonayaa waxba kama jiraan. Itoobiya doorashooyin baa ka jira maxaa uga baxaya doorashooyinka ka jira uu ka duwan yahay xagga ka jira halkana dee waxa loo sameeyaa dadku iyaga goboleeyadooda doorashay galaano lama weydiiyo kaad halkana dee kaad baa la isweydiiyaa wixii kolba la doonayo haddaynan weelkiisa samaysanina waxba inoo suura geli maayaan. waraba jiro meelaha ugu waaweyn bay ka mid tahay madarada aad loo xisaabiyay bay ka mid tahay xisaabtaba intaasaan idinku nimid. waxaan doonaynaa maalin jimcaha dadku wada joogaan inuu fariinta idin dhigno kulay waxaanu sii mari doonaa haddii ilaahay dhaahdo gorgoorkaanu sii mari doonaa. shalay waxaanu diyaag marnaynu xaalad warka xaggaa u geynay بريتونا شجعة يجوا شوغان أو تمادان وركونا حاجة هكذا كل هذا كنت كلنا وحنا نقبل حدنا محل الوضع
waxaanu idinku nimid arrintii diiwaangelinta deegaankeenu waa laba qaybood xadkaa beenbeenta ah ee halkaa ka samaysma baa qaybiyey laba dowladood buu inoo kala baxay xagga guntana waanu iskaga naadnay diiwaangelintu dadku way diiwaan gasheen intooda in badan baa diiwaan gashay intaan diiwaan gashanayni ha isdiiwaangelisaanu idinku waa kuwee kuwaasi waxa weeye qofkiyaan hore isu diiwaangelin dad badan hore isku diiwaangelin baa jiro baalku ahayo caaqil ahayo jooge waddanka ka labaad waxa weeye dadkii qaanga diiwaangelinta tii ka horreysay 10 sanaa laga jooga dadkii qaangaarina ha isdiiwaan qaangaarku waa misa waa 15 sano dadka laqanka ah iska kore iska weerarku waa iska fiican ka hoosaabu qaangaara qodobka saddexaad waxa weeye qofkii kaadhku ka lumay qofkii kaadhkiisu lumay ama ka jeexmay ama ka xumaaday weeyaan ka afraad waxa weeye horta kaadhku ka lumay waxa la midoo ku jira dadkii kaadhadhka dadkii isdiiwaangeliyeen berigii hore oon kaadhadhkoogii qaadan 3,020 kaadh baa yaala imika hadda waraaqahoogina ha soo qaadan ama yaale soo qaadan ha yimaadana ha isdiiwaangeliya qodobka afraad raaca waxa weeye qofkii iska diiwaanay goob ka yara fog deegaankiisu doonaya inuu soo dhoweysto isaguna wuu bedelo karaa qodobba waraaq baanu siin doonaa ay ku qoran tahay 4 qodobood ku garataan hee waraaba jiro intaan wiishana waa intaa